daafurkii buugga ka hadlayay taariikhda galbeedka gobolka City ee shalay maanta iyo berri toole ayaa waxaa halkaasi hadallo ka soo jeediyey wakiilkii ka socday Ugaas Mustafa Maxamed oo ah oday dhaqameed Cali Muuse waxa uu ka sheekeeyay oo mahad celiyay dhalinyarada ku dadaashay soo ururinta taariikhda buuggan ka hadlaysa dhibaatada iyo sidoo kale galbeedka gobolka City isla markaasina ku tilmaamay inay tahay tallaabo wanaagsan loona baahan yahay in lagu dhiirado sidii shacabkaasi ama taariikhda galbeedka gobolka City loogu bilaha jiilka soo socda waxa uu ka warramay gudaha galbeedka gobolka City ahmiyadda ugu fadhiyo gudaha deegaanka iyo sida loo baahan yahay in xaqiiqada caalamka la tuso shacabkaasi oo dhibaatooyin fara badan iyo barakicinba lagu hayay ayaa waxa uu buuggan ka hadlaya gudaha taariikhda galbeedka gobolka City waxaana qoray qoraaga kala duwan oo ah Bashiir Axmed iyo waa kan isagoo ka hadlaya munaasabadii lagu daafurayay waxaana hadalladiisii ka mid ah sida tan haddii ayna xaggiisa ka hayn inaan kulanno lama kulmeen isagaanu mahadnaqaynaa mahadda labaad waxaanu celinaynaa walaalaha ku soo dadaalay ee maaragtay ururiyay taariikhda maaragtay dhibaatada xildhibaan Nuur Xasan iyo Bashiir Axmed aad iyo aad bay u mahadsan yihiin xilka ay isa saareen ee ay ku soo ururiyeen maaragtay dhibaatadii galbeedka City ka dhacday shalay iyo maanta iyo berri intaba ay kaga hadlayaan aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa khayr Allah siiya anigoo ku hadlaya guriga afkiisii Ugaas Mustafa Maxamed oo kamid ah odayaasha gandaha waxaan leeyahay hambalyo marka haddii la waayo cid wax qorta oo taariikhdaadii sooyaalka maaragtay ku soo bandhigta oo berri jiilka dambe ee soo kacay maaragtay uu akhristo de waa mugdi weeyaan marka waxa weeyaan iyakana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa khayr Allah insiiyaan leeyahay iftiin bay talaabaad qaadeen dhalinyartu ay inaga dayato waxyaabaha ka dhaca maaragtay guud ahaanba Soomaalida deegaanka Soomaalida gaar ahaan galbeedka gobolka City waxyaabihii ka dhacay waxyaabo maaragtay de fadhi iyo maalin kaliya wax lagu soo koobi kara maaha waan ognahay dadka xogogaalka u habaan kamid ahay marka hadal badan anigu ma badinayo maadaama dad badan ay hadalka sugayaan mahadnaqun baan jeedinayaa iyo maaragtay waajibkii uu kala maaragtay guriga maaragtay aaba Ugaas oo laygu maaragtay laygu casuumay hadalka inaan ka jeediyo aad iyo aad baan taana uga mahad celinayaa waxaan leeyahay inta fadhida ee dhalinyarta ah iyo maamulka maaragtay maamulkeena gobolka City maamulka Dirraba oo uu nagala joogo injineer Cumar iyadana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay war inigu mahadnaqayaa hadal badan kulli qoraalkii dhibaatada iyo wixii ka dhacay buuggan buu inoogu jiraa nin walba isagu ka akhrisanaya mana dhammaan hadduu socdaa maantadan uu socdaa dhibaatadii gobolka City ka socotay maantaday socotaa oo maaragtay tu dhamaatay wajigeedii un baa la galay ma dhammaanin way socotaa maanta oo meel kasta ka socdaa dhibaatadii la nagu hayay xasuuqii maaragtay magaalooyinkeenii iyo dhulkii uu reeraheennu ay degayeen ilaa hadduu socdaa inagamana hadhin dhalinyarta waxaan ku boorinayaa nin walba labada dhegood ha taago kii qoraal ka samayn kari qoraal ha ka sameeyo kii kale xasuus ha ku hayo marka waxaan leeyahay hambalyo wiilashii qoray khayr Allah insiiya maartay dhalinyarta soo abaabushay halkan fadhigan maartay munaasabaddan aadka u quruxda badanna waxaan ugu mahad celinayaa ee Allah khayr insiiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh odayaasha dhalinyarada isugu jirta